الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. allah subxaanahu wa tacaala waxau ku farad yeelay oo waajib uga dhigay addoommadiisa dushooda inay asaga isu dulleeyaan oo si dhaba u caabudaan. cibaadadaas uu rabbi ka doonayana ma ahan inuu alla u baahan yahay, ee alla waa alla qani ah oo ka deeqsoon makhluuqa oo idil, laakiin addoommada ayaa ah kuwa aan rabbi ka kaaftoomi karin ilmilicsi. sidaa darteed ayuu rabbi ku yidhi, kuwa fuqaraa oo aniga ii baahan ayaa tihiin, ee aniga addoommo i caabuda oo isu kay dulleeya oo amarkayga qaata noqda. axad walboo muslima waxaa laga doonayaa inuu rabbigii si dhaba u caabudo, diinta islaamkana ugu dhaqmo. haddaba halka kan waxaan ka soo jeedinayaa, haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala, waana ku saabsan waxyaalaha wanaagsan oo si gaara u khusayda inan walba ee muslimad ah oo rijaynaysa rabbi naxariistiisa kana baqanaysa cadaabka alle. inan walba ee muslimad ah ee arrintaa rijaynaysa ayaan haddaba u soo jeedinayaa waanadatan si gaar ah, si ay adduunka iyo aakhiradaba u liibaanaan dumarka ayagu dhagaysta wanaagga oo diinta islaamka u dhaga nugul. allah subxaanahu wa tacaala haddii la khilaafo wuxuu ballan qaaday addoommada dushooda inuu ku dejinayo caradiisa iyo cadaabba. allah subxaanahu wa tacaala kolka wuxuu naga doonayaa inaan keligii caabudno oon amarkiisa qaadano, waayo rabbi wuxuu yidhi: wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jinniga iyo insiga uma aanan khalqin waxaan aniga cibaadadayda ahayn. rabbi hadduu cibaadadiisa noo khalqay oo xayaatada noo geliyey inaan keligii caabudno, waxaa lagama maarmaan ah inaan rabbi isu dhiibno oo diintu sida ay tahay aan ugu soconno. allah subxaanahu wa tacaala waa khaaliqeenna, annaguna waxaan nahay makhluuqa ou rabbi khalqay. alla waa alla xayiya oo nool, makhluuquna waa kuwa dhimanaya. alla waa alla qayuuma oo qumitaan badan, makhluuquna waa kuwa halaagsamaya. alla waa alla qani ah ee wax walba ka deeqtooma, makhluuquna waa kuwa fuqaraa oo rabbi u baahan. alla waa alla qawi ah oo casiis oo awoodiisu ay sarraydo, makhluuqu waa kuwa ducafaa oo laga adag yahay. alla waa alla awood leh oo wax walba kara, makhluuquna waa kuwa caajis ah oon daaqad iyo tabar ay leeyihiin aan la arkin. xaaladdu hadday sidaa tahay, waxaa loo baahan yahay inaan raacno rabbi awaamirta ouna siiyey. waxaa qof walboo muslim uu ogaanayaa, axadka nabadgalaa waa qofka ku hanuuna hanuunka rabbi. qofka halaagsamaa waa qofka khilaafa hanuunka rabbi.
adduunka iyo aakhirada qofka liibaanta doonaya waxaa waajib ku ah inuu cuskado wixii uu nabigu la yimid sala allahu calayhi wasalam. rabbina qur'aanka wuxuu ku yidhi faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa. axadkii hanuunkayga raaca oo xaqu siduu yahay ugu dhaqma ma lumayo, shaqina ma uu noqonayo. cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rabbi wuxuu u ballan qaaday qofkii qur'aanka akriya ee raaca inuusan adduunka lumin, aakhiradana aan la cadaabin. waxaana arrinkaa caddaynaya aayadda aanu akrinay oo uu rabbi ku yidhi faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa. muslimiinta waxaa laga doonayaa inay rabbi u hoggaansanaadaan oo ay kitaabka munazalkaa ku dhaqmaan oo ay sunnada nabiga nooleeyaan sala allahu calayhi wasalam. sawjada saalixada ah sifada lagu yaqaanaa waxa weeye inay diinta alle u dhagan nugushahay, xumaatada mid ka cararta ay tahay, oy kitaabka alle si dhaba u ilaaliso. haddaba waxaan u dardaarmayaa inan walbee muslimad ah bal inay u dhaga yeelato warka rabbigeeda iyo kan rasuulku ou yidhi sala allahu calayhi wasalam. waayo waktiga aan ku noolnahay dadka waxay ka fekeraan calooshooda inay buuxiyaan, labis kala nuuca inay xirtaan, aakhiradana way iloobeen oo rabbi agtiisa inay waxgeystaan diyaar uma ahan. haddaba waxaad ka digtoonaataan cadaabka alle, waayo rasuulku wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi idalactu fi nnaari fara'aytu aksara ahliha annisaa. waxaan eegay naarta alle, naarta dadka ku jirana waxaa ugu badnaa haweenka. haddaba ukhti lmuslima, cadaabka dadka gelaya waxaa u badan buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dumarka. ee naftaada ka badbaadi arrintaas, naftaada ka badbaadi oo rabbiga ku khalqay ka cabso. allah hana waafajiyo waxa uu jecel yahay rabbina ka yahay, hana naga dheereeyo annaga iyo walaalahanya dariiqyada shaydaanka iyo raacidda hawada. haddaba waxaad u dhaga nuglaataa haweenta muslimada ah oo reer kale waxa laga doonayo waxa ay yihiin, oo ayadu doonaysa inay gurgeeda wanaag ku dhaqdoy rabbi agtiisa ka liibaanto. allah subxaanahu watacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. rijaashu waa kuwa u qumitaan badan dumarka dushooda, oo macnaha loola jeedo waxaa loogu talagelay rijaasha inay mas-uuliyadda dumarka dusha saartaan oo ay si wanaagsan u ilaaliyaan. allah subxaanahu watacaala wuxuu aayad kale ku yidhi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا وحى واجبك بناتك آدم أو إذل إني نفسدود أسلمان ربي مشيئتيس إيا إرادتيس ربي وحى أودونيو أو راليك كيهي وإني نفتود أسلمان. إرادة ربي وحي كانتي هوانت إن لقبك المد ضعيفة وتاكتيد أي يرتعي ميلبضا سيدا درتيد لغوما كاللسين وحيالها الرجاسة لغو كاللفي وحلمدأ وانا ضعفي غير آودي. الله أيا وحو يري وللرجال عليهن درجة. وحو يري منك ابن كثير ليرى رحمه الله وحلو لجدا درجة حق خلقك
iyo xagga khuluqda iyo xagga mansilada ayuu ninku haweenta dusheeda darajo dheeraada leeyahay oo abuurista ayuu uga bedelan yahay xibnaha xoogooda akhlaaqda ayuu uga bedelan yahay wax kamid ah waxaa kaloo halkaa ku sugan oo laga garanayaa haweentu waa inay adeecda ninka isaguna waa inuu isu taago masaalixdeeda adduun iyo aakhira waxadanu ugu jirto allah subxaanahu watacaala ayuu marka wuxuu leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa rijaashu waa kuwa qawaamiin ah oo dumarka ra-iisya u ah oo dumarka dushooda xakumaya oo edbinaya oo wanaaga baraya oo mas-uulka ah oo si walba inay u ilaaliyaan laga doonayo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxay rijaashu qawaamiin ay dumarka ugu yihiin oo sidaa looga doonayaa waxa weeye waa bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin sida alla rijaasha uga fadilay dumarka maxaa yeelay ninku haweenta xagga xoogga wuu uga awood badan yahay waxyaalo badan ayuu rabbi gooni uga dhigay nimanka waxaad arkaysaa xagga nubuwada iyo ambiyada rijaasha ayaa alla ka dhigi jiray mas-uuliyiinta sarsare ragga ayaa iskale sidaa darteed nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam lan yuflixa qawmun walluu amrahum imra'a ma liibaanaan qoon amarkooda tawallisiiyo u dhiibay haween xadiis bukhaari ku sugan ayuu nabigu sidaa ku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa la doonayaa dumarka islaamka ah inay gartaan in mas-uul laga yahay waxaa la doonayaa inay gartaan rijaashooda inay ka dambeeyaan wax kastoon alla ka caroonayn inay waajib ku tahay waxyaalaha ay ayagu u baahan yihiin oo cilmiga barashadiisa ah nafaqada ah edbinta iyo akhlaaqda wanaagsan ah waxay waajib ku tahay raggu inay u fuliyaan oy u sameeyaan sida uu rabbi caddeeyey subxaanahu watacaala waxaa laga doonayaa ayaguna inay ka dambeeyaan raggaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alaa wastawsuu binnisaai khayra fainamaa huna cawaanin cindakum laysa tamlikuuna minhuna shay-an gayra dalik wa raggow hurdada ka kaca oo dumarka khayrka iyo wanaagga u dardaarma oo diinta islaamka ku waaniya oo samaanta bara oo u sheega oo sheeyaalka cuncun uga diga dumarku adinka dushiina agtiina waxay ku yihiin kuwa qafaalan oo asiiraad ah mana ka hananaysaan oo kuma lihidin inay warkiina maqlaan oy guryihiina joogaan oo ay jirkooda idiin ogolaadaan waxaan ahayna kuma lihidin ee ha ku xadgudbinina oo ha ku cayaarinina oo ha ka dhiganina addoommo oo kale ee dad qaymaysan ood basharidaan ood wanaajidaan ka dhiga ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala waayo agtiina ayay ku qafaalan yihiin oo haweentu markay nin yeelato reerkeeda iskama aadi karto guriga amar la-aan kama bixi karto waxay doonto ma samayn karto waa qof mas-uul laga yahay oo saldano iyo awood dusheeda lagu leeyahay oo la doonayo inay si walba u amar qaadato haddaan lagu amrin wax caro alla ku jirto xadiidka macnaha tusiyey waa xadiid xasana waxaana soo saaray tirmidi iyo ibnu maaja haddaba waxaa la doonayaa dumarku inay noqdaan kuwa hagaagsan oo ay dareemaan hadalka uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo rasuulkii wuxuu ku sheegay inay asiiraad yihiin oo ay qafaalan yihiin oo ay gacanta rijaasha sidaa ugu jiraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa yanbagii liaxadin an yasjuda liaxadin
ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولما عظم الله عليها من حقه. ما هبون أحد بني آدم إنه أحد كلو بني آدم أسجود أيوه صلى الله عليه وسلم. أحد هدو لها من أحد كلا أسجودنا وأي أرنتها صحبونان لهذنا هوانت أيان أمر لها إني منك قبل أسجود أيوه صلى الله عليه وسلم. وحق أو منك هوانت تشهد كل يهي إيه ربي قوية وينك أوغر آودي أيا هدي صورة قلها لهذ أحد بني آدم إلا السجود هوانت أيا لو أران لهاي منك أسجود أيوه صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح الترمذي ابن حبان أيا صوت عليه أبا أختي المسلمة حديث كاسوا برهان أما الدليل قاطع أو وين وعطينا يا حق أو منك هوانت أو قبل وين كيسا مرق رسونا سجود الشيء اللي يراب وما هبونا أحد أن عظيم أهين ربي أيا إسكال مركا كل جوحا لقويري بشر إن لو سجودا هذي صورة قرأها لهذه قف بني آدم هوانت أيا السجود لهذ منك أيا قبا وحق أو دشة كلية وين انت أو كقبو هوانت يعني دشة وحا أهالي وحا أبوي بعد حق الله ورسوله حق إلهي حق الرسول كككرا وهو المفضل حقا منك هذا سوى وحا جوابي منك اللي يرادو ابن تيمية رحمه الله وحاونا قلت لي حديث كأن غريبو أخرقي هذا السؤال وحوها فليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج أو أنت تشهد معها حق الله هي حق الرسول ككجلال وحوها مفضلا منك أيضا قضى حقيسا المسلمة وحاد آد متكرتا وكنت تذكرتا حديث كأنه أخرني هي بل أي لأك هاي هوانت إني منك أتعلو واجبني ماذا وقلت حق أو منك قبا كبولي هاي جراء واجب كاللقاتون يا انت أو لأك هاي ربك كعبد سبحانه وتعالى حبنا لجين هوانك وقتك نجرا خاصة دمرك متبدداتك مضح أرك ومترجلاتك وهوانك عصرك أنجوغا كمدة رجع السوء كيسية وإسكدية السلطنة هي السيطرة إني أيوغو قاطان قريها سيدي دونان أغو تصرفان dariiqay doonaan ay wareegaan xijaab la-aanna wadooyin ka taagtaagan hurdada ha ka kaceen oo rabbi ha ka cabsadeen imise fadiilo iyo wanaag ayaa lagu cayaaray oo la cagsiyey imise shay oo dulli aheyd ayaa maanta la qurxiyey dadka maanta joogaa agsarkoodu hawada ayay raaceen waxayna dabagaleen dadka la yidhaha sharqiyiinta iyo qarbiyiinta waa reer galbeedka iyo reer bariga kuwaas oo ahaaday kuwa doortay adduunyada aakhiradana halmaamay oo ku sifoobay ulaa'ika aladiina ishtaraw alxayaata addunyaa bilaakhira xayaatada adduunyada ayay ku iibsadeen aakhirada oo adduunka ayay doorteen macmacaansiga tegaya iyo naciimada adduunyada ayay raalli ku noqdeen aakhiradana way halmaameen haddaba inanta ilaahay islaamka ku hanuuniyey uktii waxaan kaaga digayaa dadka lumay wadadooda inaad qaadid dulliga iyo waxa lagu hallaabo inaad sheegatid
iska ilaali waxyaalaha lagu magacaabay xurriyadda iyo taqadumka iyo xadaarada reer galbeedka. iska ilaali dariiqa alle inaad ka leexatid. faxdirii yaa ukhtaa, walaalay ka digtoonaansha kulligiis inaad ka weecatid dariiqa xaqa ah, inaad ka dhigatid daarta aad ku nagaanaysa adduunyada. waxaad ogaataa ukhtilmuslima, waxa kaa horeeyaa waa maalin ilmaha u yeesha ciro, dadkuna ay wada sakraamayaan, dullina oo ummadda ku dhacayo. ee hurdada ka kac, kitaabka rabbi baro, dhaqankiisa ku dadaal, sawjka adiga ku qaba raalli garay, awlaadaadana wanaag ku kori. zawjada saalixada ahay waa inaad ogaataa adduunyadu inay tahay wado safar lagu yahay oo dhammaanaysa. majhuul ayaa laga yahay oo lama garanayo qadarka adduunyada. waxaana la ogeyn cimrigaagu saacadda uu go-ayo. waa inaad si dhaba ugu fakertaa in socdaal dheer lagu jiro. qofka musaafirkaa waxaa lagama maarmaan ah inuu samaysto zaad iyo raashin ou sii cuno, iyo daabad ou raaco, iyo axad ou cabsida ka weheshado. adduunku marka waa meel noocaasa. haddaba zaadka la qaadanayaa waxa weeyaan daacada rabbi iyo wixii rabbi noo diroo dhan inaan ilaalino, wixii rabbi naga reebayna aan ka tagno. waxaa ugu wanaag badan looguna jecel yahay waxyaalaha rabbi dadka u baneeyey ee wanaagsan. waxaa loogu jeclaan badan yahay oo ugu fiican haween saalixad ah. haweenta saalixadda ah waa khayru rafiiq. axad rafiiq laga dhigto ayadaa ugu khayr badan. wax wehel laga dhigto ayadaa ugu fadli badan. ninka ayada qaba waxay ugu kaalmaysaa mashaqada safarka, waxayna ka ilaalisaa in badan khatarta, waxayna ku waanisaa waxa alla raalli uga yahay. haddaba zawjada saalixada ah ee sidaa ku sifaysan ayaa la doonayaa inay ku sifoobaan dumarku. rijaashana waxaa laga doonayaa inay doonaan inanta sidaa ku sifowday. saalixada waxaa la yidhaahdaa isla inanta wanaagsan ee marka la amro amarka adeecaysa, marka la eego ku farax gelinaysoon xumaan looga jeedayn, kolka laga maqan yahana wixii ilaali la yidhi ilaalinaysa. nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, addunyaa mataacun wakayru mataaci dunyaa almar'atu asaalixa. adduunyadu waa raaxo iyo birbir. waxa adduunka joogoo lagu raaxaystana waxaa ugu khayr badan zawja saalixad ah oo hagaagsan, oo rabbigeed si dhaba uga baqata, dadka ayada la nool daacada alle sabab ugu noqota, ugu kaalmayda qofka ehelkeeda ah wanaaga. xadiidka asagaa waxaa soo saaray axmed iyo muslim, nasaa-i iyo ibnu maaja. idan hadduu muslim ku sugan yahay waxaad garatay inuu saxiix yahay. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, arbacun min asacaada. afar arrimood waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu liibaano oo qofka oo wanaagga ugu noolaado. almar'atu asaalixa, haweenta wanaagsan ee rabbigeed ka cabsata, ee waxa loo diro oo alla raalli ka yahay fulida, sawjkeedana ku adeecda wax walba ee wanaagsan, qalbigiisa dejida, tiraanyada ka tirtirta, marka uu u yimaado dhibaatada ou la soo kulmay oo suuqa uu kala soo kulmay ou ku iloobo ayada. waxaa kaloo kamida waxaa lagu liibaanay afartaa walmaskanu lwaasic, guri waasica
oo ilaah lagu caabudo oo aan xaaraan lagu samayn. waljaaru saalix iyo deris hagaagsan oo diinta kugu waaniyo oo ku garab taagan. iyo walmarkabu lhayin rukuub hagaagsan. rukuubka hagaagsan waa gaari fiican iyo waxa lamidkaa ee la raaco. waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam, 4 min ashaqaawa, 4 arrimood waxay kamid yihiin waxyaalaha shaqaawada ah ee qofka halaaga sababta ugu noqda. waxayna kala yihiin aljaaru suu, deris xun oo ku caayayo xumaan kuugu yeeraya. walmar'atu suu, haween xun oo aflagaado badan oo dhibaato badan. walmaskanu dayiq, iyo guri ciriiri ah oo ciriirinimadu ay ka timid xagga qolalka ama xagga cibaado la-aanta. iyo walmarkabu suu, rukuub xun oo aan meel la gaarin, waa gaari maalin walba la riixayoo kale eh. xadiidka asagaa waa saxiix, waxaana soo saaray ibnu xibbaan iyo kayrkii. wuxuu noo cadaynayaa waxa wanaagsan oo qofka adduunka iyo aakhirada uu ku wanaagsanaado waxaa ka mid ah inan saalixad ah ninka in alla ku arsuqo. allah subxaanahu watacaala wuxuu ammaanay dumarka saalixaadka ah. wuxuuna rabbi ku yihi qowlkiisa, faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah. dumarka saalixaadka waxaa loola jeedaa kuwa mustaqiimaadka ah ee diinta alla ku toosan. qaanitaadka waxay ku fasireen culimadu waa mudiicaat lilah, rabbiga khalqay adeecsan yihiin. waxay kaloo adeecaan aswaajtooda iyo nimanka qaba. xaafidaad weeye, waxay ilaaliyaan wixii rabbi u wadeeca dhigay oo ilaaliya lagu yidhi. naftooday xaaraanta ka ilaaliyaan, nimanka qaba xoolahooda iyo gurgooday xumaatada ka ilaaliyaan. owlaada ay dhaleen bay ka ilaaliyaan akhlaaq darada, wanaagay ku dadaalaan. dumarka saalixaadka ah kuwaas ayaa la yidhaah uksil muslima, ku sifow aayaddu dumarka ay tilmaantay ee rabbi ridihiisa shaqaystay. adduunku waa daar maalmo yar la joogayo. dhaldhalaalka adduunyada raadin aada raadinayso iyo raaxo adduunyo xaqa haugu cayaarin. xaaraan inaad samaysanayay kugu kalifin arrintaasi aada liibaantide. waxaa aayadda macnaheeda sii bayaaninaya hadalkii nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalam, idaa sallat ilmar'atu khamsaha wasaamat shahraha waxafidat farjaha waataacat zawjaha faltadkul min ayi abwaabi ljannati shaa'at. haweentu hadday dukato 5 salaadood oo ay soonto bisheeda ramadaanka, oo ay jirkeeda zinada iyo xaaraanta ka ilaaliso, oo ay ninka qaba adeecdo, albaabada jannada midkay doonto ha ka gasho, ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam. marka xadiidkaas wuxuu sii bayaaniyey aayadda macnaheeda. waxayna macnuhu yihiin haweenta saalixadda ah waa midda wixii rabbi u diroo dhan ilaalisay, wixii rabbi ka reeboo dhan ka tagtay, ninkeeda ku raali galaysay wax kastoo rabbi ku raali galee yidhi. taasaana jannada ka gelaysa albaab alla albaabkay ayadu doonto. xadiidkaasi waa xadiid xasana, waxaana soo saaray imaamu axmed iyo dabaraani oo ku qoray isagu mucjamu lawsat. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la su-aalay, ayu nisaa'i khayr, dumarka yaa ugu khayr iyo wanaag badan. waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam, alladii tasuruhu idaa nadar, midda ninkeeda farax gelinaysa kolka ou eego. waxaa loola jeedaa wax rabbi ka caroodo amau ninku ka hado laguma arko. faraxgelinta laguu sheegayaa caddaanteeda iyo dhalaalkeeda ma ahan, ee waxaa laga wadaa loogama jeedo oo laguma arko wax rabbi ka caroonayo ninkeedana dhiba.
وتطيعه إذا أمر مركو أمرنا أشيعيسا ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله وآن كخلاف وآن سمين وحو كهانيو نفسه إلى مالكي سمدنا بآن كسمين وانت نوعاسا أي دمرك أمو خير بدن بويري صلى الله عليه وسلم وحي ربي أدري لجمع وايو وحالله قرسل مديد وان ربي عربيس كجرين وحن كيدو كهانيو كما سميدو نفسه إلى مالكيسا انتبه marka midda noocaasa ayaa ugu wanaag badan buu yidhi sala allahu calayhi wasalam uqti lmuslima sifaadkaa sidii lagaaga heli lahaa doon adduun iyo aakhiro aada liimaantide xadiidkaasu waa saxiix waxaana soo saaray axmed iyo nasaa-i iyo xaakim waxau yihi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi ninka la yidhaaho wuu ku waafaqay warkaa haweenka saalixaadka khayrka ayay sameeyaan nimankoodana waa u ixsaan falaan nimanka qaba ayay adeecaan wax kastoon caro alla ku jirin bay ku adeecaan naftooda way ilaaliyaan marka laga maqan yahay xoolaha looga tegay way ilaaliyaan marka laga maqan yahay ninkooda ma tusiyaan wax uusan raalli ka ahayn wejiga ayay u furfurtaan oo ninka way u dhoolla caday awkum min ahli ljanna haweenkiina ahlu jannada kamid ah waxaa lagu garanayaa inay yihiin alwaduud alwaluud alcaud calaa zawjiha allatii idaa qadaba jaa-ad xataa tadaca yadaha calaa yadi zawjiha waxau yihi sala allahu calayhi wasalam haweenkiina ahlu jannada ah waa kuwa waduudiinta ah oo nimankooda isjeclaysiiya waluudka waxaa loola jeedaa ilma dhalidda shardi ma ahan oo haddaan alla owlaadtiin laakiin sida kale ay u fiican tahay janno ayay leedahay ee haweenta ilmaha dhasha maxabad gaala ayaa loo siihayaa weeye alcaud waxaa loola jeedaa waa midda ninkeeda nafci u soo celida oo ninkeeda nafci iyo khayr sabab ugu noqota oo xumaatada ka waarisa oo inuu ku sabro dhibaatada ku xambaarta marka uu ninkeedu caroodo way u timaadaa ilaa ay gacanteeda ku dejido gacanta ninka qaba markaas ka gadaal ayay ku tidhaahdaa laa aduuqu qumda xataa tardaa anigu hurde ma dhadhaminayo mana raaxaysanayo mana nasanayo ilaa aad raalli ka noqonaysid ee raalli noqo haweenta sidaa ku sifowday dumarka jannada ayay kamid tahay ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasu waa xadiid xasana nasaa-i ayaa soo saaray waxuuna ku qoray kitaabkiisii ahay sunan lkubraa waxaa xadiidkaa la cadeeyey sanadkiisu inuu jayid yahay duruq kale ou leeyahay oo uu ku soo saaray ninka dabaraani la yihaha kutubta macaajinta ah awsad iyo sagiir haddaba ukti lmuslima allaha kuu naxariisto rabbina ha kuu fududeeyo sifaadkaas aanu soo sheegno xadiid ku cadeeyey ee sifaadkaas inaad nafsadaada ka xaqiijidid ku dadaal aada liibaantid xayaatada saciidada ku liibaantid daarta adduunyada iyo daarta aakhirada labadaba iska ilaali dumarka zamankan jooga waxa ay ku sifoodeen badankoodu oo ah inay ayagu ku dadaalaan nimanka qaba inay ka caraysiiyaan markay ka caraysiiyaan oy xumaan ku sameeyaanna ay haddana iska dhaqaaqaan ee nimanku ay ayagu dalbaan inay raalli gareeyaan axad walbee carooday in la raalli gareeyaa laasim weeye laakiin inanta muslimadaha waxaa laga doonayaa inay dabeecaddeeda wanaajido ninka ayada qabana ay raalli garayso haddaba ukti lmuslima waxaad ku dadaashaa sidaad alla agtiisa darajo sara ugu yeelan laheed
gurigaaga markaad ka baxayso rabbi ridihiisa uga bax markaad joogto rabbi waxau raadi ku yahay ku joog waxay guryaha musiibadu ugu dhacday oo aqal dumiddu ay u badatay oo awlaada alla caasiyaal uga dhigay guryaha marka laga baxayo caro allah lagu baxaa marka la joogo xumaan iyo caro alle ayaa lagu joogaa mashaakilka iyo dhibaatada usrooyinka iyo guryaha maanta ka dhacaya aad ayay noogu bateen maqalkoodu sababna waxaa u ah in alla diintiisa laga tegay laa xawla walaa quwata ilaa billah waa maxay musiibada ka weyn dadkii la doonaya inay diinta dadka ku hogaamiyaan calan islaamiya ay ummadda gaarsiiyaan diinta alla ay dadka ku xakumaan guryahoodii inay sii burburayaan owlaadoodana akhlaaqdu ay ka lumayso uqtil muslima qalbigaaga sow kuma jiro in yar oo iimaan ah ka digtoonaw xuduudda alle inaad ku xadgudubtid amarka alle inaad khilaaftid diinta alle inaad ku tuntumatid danu kuuguma jirtee diinta ilaali yaadan dulloobina aayaadka iyo axaadiista daliil ka dhigo xaqana ha u baranin inaad ku murantid amaad ku fahamtid waxaad u barataa inaad rabbi uga baqatid oo jannad ku shaqaysatid oo gurigaaga ku maamusid ood ilmahaada ku korisid waa sida lagaa doonaye haweenta naasisnimadeeda nusuusulmara waxaa la yidhaahdo oo say xun ah nusuusnimada waxaa la yidhaha haweentu inay khilaafto sawdkeeda oo ay ka baxdo daacadiisa oo ay ku dadaasho waxausan raalli ka ahayn inay samaydo sharcigu wuxuu jireeyey si haweenta haddii naasisnimo loogu arko looga dawayn lahaa rabbi wuxuu yidhi wallaatii takaafuuna nusuusahunna faxiduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna allah subxaanahu watacaala isagoo nimanka amar siinaya wuxuu yidhi haweentii haddii naasisnimo lagu arko 3 martabo ku ciiraasiya midba marka koowaad waaniya isla markaad calaamada naasisnimada ku aragtaan cabsida alle iyo taqwada xasuusiya wixii rabbi dusheeda waajib uga dhigay oo xaqa uu ninku kuleeyahay ah xasuusiya hadday ku dadaasho waxaa loo diray in rabbi agtiisa ay sawaab ku leedahay u cadeeya hadday mukhaalafada ku socoto cadaabka iyo caro alle inay ku dhici doonto tusiya hadday tahay haweendaasi salaax wadiin ah oo diin iyo salaaxnimo iyo wanaag u saaxiib ah rabbi way ka cabsan doontaa waanadu way anfici doontaa sida uu rabbi u yidhi sayadakaru man yaksaa waxaa waanada ku waansama oo waanadu anfici doontaa oo waansami doona qof rabbigii ka baqda macsiyada hadday daa'imto oo waanadu ay anfici weydo martabada labaad usoo wareega oo ah alhijraanu fi lfiraas firaaska uga haajira samaaca kala fogaada wa hadalkii nabiga ku dhaqma oo ahaa sala allahu calayhi wasalam walaa tahjur ilaa fi lbayt hauga haajirin meel aan gurga ahayn gurga dhinac ka seexo oo go-a lala huwanaya iyo maxabadii loo muujinaya iyo arrintaa kala durga xadiid saxiixa oo imaamu axmed iyo qaybka ay soo saareen qayb kamida weeye xadiidka aan daliishanay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaa ay ka laabanayso xumaatada yaanba lala hadlin laakiin hadalka in laga goosto lama ogolaan arrinkaa asaga ah hadday ka soo laabato hijradu anfacdo adinkuna ku soo laabtoo wanaajiya
hadday anfici weydo arrintaas ayada ah oo seelakirayso meelo kale aada laysma dhigin guriga dhinac ka seexa baa lagu yiri hadday marka arrintaasu anfici weydo martabada saddexaad usoo wareega oo ah addarbu kayra almubaric garaacid aan jirka inanta baraarinaynin oo allah subxaanahu watacaala ayaa yidhi yani markaa fadribuuhunna garaaca waa garaacidii ou nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam rasuulku xajatulwadaac wuxuu yidhi walakum calayhina allaa yudi'na furuusakum axaddan takrahuuna haweenka dushooda waxaad ku leedihin qof aad kahanaysaan inaysan gurdiina soo gelin oo macnaha aysan firaaskiina ku fadhiisin faidaa facalna dalik fadribuuhunna darban gayra mubaric hadday arrinkaas sameeyaan garaacid aan jirka bararinayn oo aan dhibayn oo aan imin jabinayn oo aan jirka jareexa u yeelayn macnuhu waxa weeyaan meesha jin looga muraadi maayo ee waxaa looga muraadayaa darafdarro intaad ka qabto sida xayawaanka ama addoommada in laguu dilo ayaad mutaysatay in la yidhaah oo marada daribteeda iyo wax lamida lagu dhiftaa loola jeedaa xaaladda aada wax ku dhifanaysaan wejiga wax uga dhifanina lacnadaa kugu taalla iyo foolkaadaa madow iyo xoolyadiskaana iyo wasaqiyay hadhihinina waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tadrib ilwajha walaa tuqabid wejiga waxa uga dhifanin hana ku oranin qabaxika allah allaha ku xumeeyo ama qabax allah wajha wejigaaga allaha madoobeeyo lacnado ha kugu dhacdo waxaas yahan lagu oranin ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka aanu deliishana qaybta ka midkaa waa xadiid saxiixa oo ku sugan kutubta ay sunanku iska leeyihiin marka maraatibtaas ayaa loo marayaa haweenta edinteeda hadday ka baxdo daacada sawdkeeda intaa wax kamidu hadday anfici weyso oo cilaaj kale loo waayo hal malahan aan furiin iyo kala tag ahayn laakiin intaas ayaa la doonayaa mid walboo kamida in waqti lagu eego oo laysku dayo in la xalliyo oo lagu dadaalo arrinka ayaa la samaynayaa haddaba ukti muslima ka digtoonaansha kulligeed caasinta ninkaaga iyo naasisnimadu waa dambi weyn ciribtiisuna waa mid xun ee rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala hadduu ninku xaqaaga ku gaboosalo ama ku dulmiyo xaqaaga si macruufa uga qaado ee naasisnimo iyo macsiyo iyo kibir ha samaynin dhegayso ninba gabadha la yidhaah waa mucaawiye hooyadii oo rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalam oo nin saxaabiyu qabo waxay nabiga ku tiri nabiga sala allahu calayhi wasalam ina abaa sufyaan rajulun saxiix abaa sufyaan waa nin bakiil ah oo aan nafaqadii aan ku lahayna siinayn fahal calaya junaaxun an aakuda min maalihi siraa dushayda dambi ma ka yahay xoolihiisa inaan si sir ah wax uga qaatowsan ogay nabigu waxau ku yidhi sala allahu calayhi wasalam khudii anti wa banuuki maa yakfiiki bilmacruuf qaado adiga iyo ilmahaaga wax idinku filan si macruufa oon xadgudub iyo xumaan lahayn ku qaada ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka hadduu xaqaagii ku gaboofalay dariiqaas oo kala mar laakiin naajisnimo iyo caysamid iyo kibir iyo waxyaalo kale ha muujinin uktil muslima sabar oo dulqaado in badan ayaa rabbigaa ku gargaarayaahe xadiidkaa isaga ah waa xadiid saxiixa maxaa yeelay waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim iyo kutubta sunankaoo idilba naasisnimada haweentu waxay ku timaadaa siyaalo badan waxaana kamida haweentu inay ka reebtoonaato ninkeeda jamaciisa oo ay tidhaahdo iima soo dhawaan kartid
waxaa kamida inay khayaana ku samaydo xagga nafteeda oo ay ninkeedu waxyaala uusan raalli ka ahayn nafsadeeda ku samaydo diin ilaahay oo u fasaxayaana aysan jirin iyo inay gurga soo gelido dad uusan raalli ka ahayn iyo in ay gurga ka shaqay weydo macnaha gurga wixii looga baahnaa oo khidmada dumarka ah inay qabato ay diiso iyo in ay xoolaha ku cayaarto oo ku bixido meel aan sharciga loogu fasixino ninkeedu macnaha u ogolayn waayo ninku hadduusan ogolayn diintu si kasta igu ogoshay inanta xoolaha gurga ma bixin karto oo ninku leeyahay waxaa kaloo kamida inay ninka caydo oy hadal xun ku tiraahdo inay gurga ka baxdo idankiisa la-aanti inay sirkiisa fidiso ceebihiisa dadka u sheegto waxyaalahaasoo idin waxay kamid yihiin suwarka ama arrimaha ay haweentu naajisad ku noqonayso fastaqi llaha ukti lmuslima walaashayda muslimadahay rabbigaa ka cabso fa inaki daciifa wa cadaab allahi shadiid adigu waxaa tahay mid taag daran cadaabka allana waa mid shadiid ah iska ilaali ukti lmuslima cisyaanka waxaad dhegaysataa adilada ku soo aroortay haweenta ninkeeda caasida cadaabka ay iska leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi waaladii nafsii biyadi maa min rajulin yadcuu imra'atahu ilaa firaashiha fata'baa calayh ila kana aladi fi samaa'i saafidan calayha xataa yardaa canha rabbi ayaan ku dhaartay nafsadaydu ay gacantiisa ku jirta nin ma jiro haweentiisa ugu yeerta firaashka oo firaashkeeda ka dalba inay ugu timaado oo ay markaa diido ilaa ay jirto haween sidaa yeesha rabbiga samada ahaaday wuxuu ahaanayaa mid u caraysan oo cadaabkiisa ku sallida ilaa ay ninkeeda raalli garaynayso sidaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid ku sugan saxiixa riwaayadaa mid lamida ayaa iyaduna jirta oo caddaynaysa rabbi cuqubadiisu inay ku soo dhacaydo ilaa uu ninku raalli noqonayo uktilmuslima carada ilaahay ma qaadi kartid ee rabbigaa ka cabsee waansan waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam isnaani laa tujaawisu salaatuhumaa ru'uusahumaa laba qofood salaadoodu madaxa ma dhaafto waxayna kala yihiin cabdun aabiqun min mawaaliih xataa yarjica ilayh kan koowaad waa addoon ka dhuuntay dadkii iska lahaa ilaa uu uga soo laabanayo waa dadkii gaalada laga soo qafaashay midda labaad waa imra'atun casad zawjaha xataa tarjic waa haween ninkeeda caasiday oo ku caasiday wax aan diinta alle ku caasi dhihin ilaa ay ninkeeda ka raalli garaynayso ilaa uu ka raalli garaynayso ka soo laabanayso salaadeedu madaxa dhaafi mayso ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam wa rabbi ka cabsada oo diinta ilaaliya xadiidkaasu waa saxiix dabaraani ayaa ku qoray kutubta macaajimta ah oo la kala yidhaha mucjamu lawsad iyo mucjamu sagiir xaakimna sahal wanaagsan buu ku soo saaray waansan oo wanaagga qaado addoonta ilaahayey isutaag wixii rabbi dushaada waajib uga dhigay oo ninkaaga daacadiisa ah ogow uktii inuu ninkaagu yahay jannadaada iyo naartaada sida xadiidba ku sugan markaad daacada alla la timaado ka gadaal waxaa lagaa doonaya xaqa ninkaaga ayaa ugu weyn uktilmuslima nusuusta ha ka caroonin xaqana ha garan marin wixii alla raalli kaaga noqon lahay ayaan kuu tilmaamayaa ee dhegan nuglaaw dib walba ha kugu haydo inaad fulidid waxyaalaha qaarkood ee naftaada cadaab ka badbaadi waxaadna dhegaysataa xadiid caddaynaya nabiga sala allahu calayhi wasalam in loo keenay inan ay u timid nabiga inan ayaa nabiga u timid marka nabiga waxay ugu timid dan ay laheed inantaasu waxau nabigu ku yidhi markay danteedii u faaruqay nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam
adaatu zawjin ant nin ma leedahay mase malihid waxay ku tiri nin ayaan leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kayfa anti lah sidee baad ninkaaga u tahay ood ugu shaqaydaa ood u raalli garaysaa waxay tihi maa aaluuhu ilaa maa cajaztu can kama gabood falo inaan ku raalli gareeyo amaan u qabto wax walbo samayn karo ilaa wixii aan gaari waaye ma ahane macnaha waxaa loola jeedaa inta aan daaqa u leeyahay waan u khidmeeyaa waan adeecaa waana raalli gareeyaa rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fandurii ayna anti min waxaad bal eegtaa ninkaaga sida aad ku tahay fa inamaa huwa jannatuki wa naaruki ninkaagu waa naartaada iyo jannadaada macnaha waxaa loola jeedaa ninkaaga daacada aad adeecdaa sabab ayay kuugu noqonaysaa gelidda jannada alle caasinta aad ninkaaga caasidaana sabab ayay kuugu noqonaysaa gelidda naarta alle ee rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala haddaba ukhti lmuslima halkaas waxaad ka ogaatay naajisnimada iyo cisyaanka ninka inay tahay dembi weyn oo rabbiga jabbaarkaa uu kuu caroonayo oo malaa'igta alle ku lacnadayso oo xuurulcayntu ay ku inkaarayso oo aan salaada lagaa aqbalay bal cadaab lagu ballan qaaday nacuudu billahi min sakadi rabbi baan ka magangelaynaa caradiisa waxaana su-aalanaynaa ridwaankiisa iyo dembi dhaafkiisa fattaqi illaha ukhti lmuslima walaashayda muslimadahay rabbigaa ka cabso ammaanada ou alla dushaada ku xambaaray gudo oo rabbigaa daacadiisa ku dadaal oo dariiqii nabiga mar oo ninkaaga adeec oo ixsaan u samay oo xaqa ou dushaada kugu leeyahay weynankiisa ha halmaamin oo diinta alla sidaa u ilaali aada liibaantide rasuulka sala allahu calayhi wasalam rajul ayaa u yimid gabar ou dhalay u keenay sida xadiid caddaynayo ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah haadihi ibnatii qad abad an tatasawaj tanu waa haweentaydii waa inantaydii waxayna diiday in nin lagu daro ayay diiday inantaydii weeye ninna iga diiday sidaas ayuu nabiga ku yidhi ninkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi adeec aabbaha inantii waxay ku jawaabtay rabbiga xayaatada igeliyey ayaan ku dhaartay ee ma aan guursanayo ilaa aad iiga sheekaynin ninku xaqa uu igu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinku markuu halkaa marayo wuxuu ku yidhi sawjada ou xaqa uu ku leeyahay waa mid weyn hadday dhacdo ninka in jirkiisa boogu ka soo baxdo oo haweentu ay carabkeeda ku leefto xaqa uu ninku ku leeyahay ma gudan karto ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam macnaha waxaa loola jeedaa dhib walba oo ay u dulqaadataba xaqa ninku uu ku leeyahay waa mid weyn riwaayad ayaa jirta xadiidka ku kordhinaysa xaqa laygu leeyahay hadduu sidaa u adag yahay anigu guur waan iska day ee lagala hadlay inantii arrinkaa waxaanu soo qoray ninka la yidhaha xaafidulmundiri inay dumarka gabar yidhaahdeen xuquuqdaas inaan gudanaabo way nagu adag tahay xadiidka asaga waa xadiid xasan ah waxaana soo saaray ibnu abi shayba xaakim iyo kayrkii xadiidka waxaa laysku qabsaday sanadkiisa calaa kulli marka la wado oo la wado xadiidka sanadkiisu xasan kama hooseeyo bijamci duruqi waana lagama maarmaan inay dumarku arrinkaa gartaan xadiidka waxaa macnihiisa aada u taageeraya adilado kale haddaba ukhti lmuslima ammaanadaa ha ku xadgudbin ciqaabka alle ka digtoonaaw daacada rabbigaa iyo daacada sawjkaaga ku dadaal ninkaaga inaad adeecda ha ka hormarinin xaqa allah iyo ka rasuulka mooye wax kale
waxaad adigu jeceshahay ka tag oo wuxuu isagu jecel yahay yeel sidaas ayaa naarta alle uga koraysaa allana raalli kaaga noqonayaahe uktilmuslima ittaqi illaha tacaala rabbigaa adeec oo rasuulkaaga ku dayo sala allahu calayhi wasalam sawdkaagu hadduu firaaska kaaga yeero u tag rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ninku hadduu haweentiisa xaajo ugu yeerto ha ajiibto wain kaanat cala tanuur jika muufadaba hadul joogtee xadiid saxiixa ayaa sidaa ku sugnaato sunanku qoray haddaba uktil muslima cisyaanka ninkaagu carada allow sababku ugu noqonayaa xayaatadaada adduunyada iyo tan aakhirada ayaa khasaaraysa rabbigaa ka baq oo diinta alla ilaali rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diiday inanta muslimada ah oo ninkeedu joogo inay sunnaa soonto haddausan ninku idmin wuxuuna xadiid ku sugan muslim ku yidhi laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahid ilaa biidni haweenta xalaal uma ahan inay soonto ninkeeda oo jooga ilaa inuu ogolaado mooyaane riwaayad kale ayaa tidhi sawm tadawuca oo min gayri shahri ramadaan ah oon bisha ramadaanka ahayn ama bisha ramadaanka qof laga yeelaya malahan haddaba uktilmuslima dadaal oo diinta alla ilaali oo waxaad ku dadaashaa inaad noqotid mid gurga wanaajida oo ninkeedu markuu banaanka ka soo shaqeeyo u soo gaalo ama isagoo caraysan oo u yimaado carada ka baabi'ida oo raalli garaysa oo dhibaatadii adduunka iyo suuqa ka soo qabsatay ilowsiida ku sifow sidii khadiijo oo kale dib walboo nabiga ku yimaaday ilowsiin jirtay sala allahu calayhi wasalam diintaada ha layicin daa'imkaada ha caasinin rabbigaana ka baq si uu raxmad kuu siiyo iyo wanaag oo idil ha fidinin sirta sawdkaaga iyo istimtaaca gurgaaga sirtiisa allah subxaanahu watacaala waa alle sariig badan oo asturid badan asturka iyo sariigta alla waa jecel yahay xishoodka oo xumaatada laga sariigtaana waa qayb iimaanka kamid ah firaaska iyo gurgana waxay iska leeyihiin asraar iyo arrimo u gooni ah ninka iyo haweentaba waxaa laga doonayaa inaan qofkood qofka kale waxyaalaha dhex maray ee gaarkaa uusan bani aadamka ugu sheekayn sidaa hadday yeelaan waxay lamid noqonayaan shaydaan iyo shaydaanad dariiqa isugu tegay dadkoo arkaya xadiid ayaana nabiga arrintaa uu uga hadlay sala allahu calayhi wasalam inanta la yidhaha asmaa binti yaziid waxay tidhi rasuulka ayaan maalin agtiisa joogay sala allahu calayhi wasalam alrijaal wannisaana waxay ahaayeen kuwa qucuuda oo fadhiya nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waxaa la arkaa raggu inay ka sheekeeyaan waxay dumarka ku sameeyaan dumarkuna ay ka sheekeeyaan waxa ay nimankooda la sameeyaan sidaa marka uu yidhi asma waxay tihi fa alama alqawm dadkii kulligood way aamuseen kolkaas ayaa idhi bay tidhi ii nacam wallahi yaa rasuula allah waa ee yeelaan inahuna laqulna wa inahum layafcaluun dumarku way ku hadlaan ragguna way sameeyaan oo qolaba qolada kale way ka sheekaydaan rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam falaa tafcalu arrinkaa ha samaynina arrinkaa qofka yeelaa waa mathalu shaydaan waa shaydaan oo kale laqiya shaydaanatan fii dariiq oo shaydaanad kula kulmay waddada oo faqashiyaha halkaa ku jameecay wannaasu yanduruuna dadka oo eegaya ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa nas sariix ku ah oo ku cad in layska reebay akhlaaqdaas xun oo damiimada ee dulliga ah xadiidkaasi waa xasan dabaraani ayaa ku qoray mucjam ulkabiir axmedna wuxuu ku qoray musnadkiisa waxaan maqlaynaa maanta in badan oo dabaalada ragga iyo dumarka ah u qaybsan
inay ka sheekaynayaan arrimaha lagu sameeyo firaaska iyo sariirta ayagoo ku faanaya ayaa laga qaaday wixii alla asturay ayay banaanka soo dhigeen dulli iyo cadaab alla ayay shaqaysteen rabbi baan su-aalanaynaa cawradeenna inuu qariyo dembigeenna inuu dhaafo islaamka inuu u gargaaro guryahana uu ka dhigo kuwa hagaagsan haddaba ukti muslima ha u ogolaanin sawdkaaga gurdiisa axad uusan asagu jeclayn raallina ka ahayn rasuulka waasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaysan dumarku ku joojin faraashadiina axad aad kahanaysaan haddaba waxaa la doonayaa qofka aad gurga u ogolaanayso inuu ninku raalli ka yahay axadkaa asaga hadduu ajnabi yahay iyo hadduu haween yahay iyo hadduu maxaarimtaada yahay farqi malaha aabbaha hooyada walaalka asaga dadka la dhashay axad uusan asagu raalli ka ahayn nuucow doona ha noqdee gurga sooma geli kartid dadka marka asagu uu raalli ka yahay oo gurga la soo geli karo waa la kala qaadayaa laba xaalo waqtigow isagu gurga joogo waa inaad tira axad baa banaanka taagana ma soo geliyaa waayo rasuulkaa yidhi walaa ta'dan fii bayti wahuwa shaahid ilaa biidni yaysan gurga qof u ogolaanin hadduu joogo ninku ilaa idankiisa maane waa xadiid saxiixa qayb kamid ah oo axmed iyo qaybki qorayaan hadduu ninku maqan yahay xaaladda uu gurga ka maqan yahay qofka uu raalliga ka yahay amaad u malaynayso sida u badanta inuu raalli ka noqonayo waad soo gelinaysaa markaa qofka asaga waa soo geli gurga waadna keenaysaa waxaa laga doonayaa haweenka ninka hadday ogtahay inuu raalli ka yahay in ay soo gelido qofka marka uu maqan yahay laakiin marka uu joogo waa inay ka idmataa oy tiraaqo qiblo ayaa banaanka taagan haddii aysan sidaa odhan inay soo gelido uma banaana dadka guryaha soo garaacaya haddii ay horay ballan u jiray oo ahaa axad walba oo dadka nuucaasa ka mid ah ama aan joogo ama aan maqnaado ee gurga soo galo waad oran kartaana mushkula kuma sugna oo markaa idan caama ayay inantu haysataa marka dumarku waa inay rijaashooda ka dhamaystaan waxyaabaha ay ka dhamaysan karaan oo sharcigu ogol yahay markay inantu keligee tahay oo gurga ay joogto dad gurga loo ogolaa oo ajaanibana ay yimaadiin khalwadu xaaraan weeye oo rasuulku xadiid saxiixa ayuu ku yidhi laa yakluwanna rajulun biimra'a fa ina saalisuhumaa ashaydaan yuusan nin haween la qaalin noqonin waxa saddex ku noqonayaa shaydaan weeyaane ama hadday dhowr qofood yihiin ama ayada lala joogo mushkula kuma sugna waqtigaa asaga ah marka qof walba ha dadaalo diintana ha ilaaliyo wabillahi